shirkadda dhanka dhismaha guryaha ugu caansan Kenya ee Minara Homes oo ay gacanta ku hayaan culimada ugu waaweyn ee dalka ayaa waxay ummadda Soomaaliyeed la wadaagaysaa fursad ay uga faa'iideysan karaan ku dhawaad 600 oo guri oo shirkaddu ay ka dhisayso meelo kala duwan oo ka tirsan magaalada Nairobi. shirkadda Minara ayaa horey 10 mashruuc uga fulisay magaalada waana shirkadda ugu ballaaran ee Soomaali leedahay ee ku jirta suuqa dhismaha ee Kenya waxayna waqtigan dadweynaha u diyaarisay fursad dahabi ah oo qiimo dhimis ah laga bilaabo dhamaadka bishan December ilaa bilowga sanadka cusub ee 2023. Minara Homes ayaa sidoo kale qorsheynaysa inay mashaariic kale ka fuliso wadamada Turkiga, Djibouti iyo Soomaaliya. Sheekh Liibaan Cali madaxa iibinta iyo suuqgeynta shirkadda Minara, Sheekh Cabdiraqiib maamulaha guud ee shirkadda iyo Mudane Cabdullaahi agaasimaha Minara ayaa ka hadlay mashaariicda ay ka wadaan Nairobi. xafiiskana wuxuu ku yaalaa Alingam Silverpool Office waxaan idin ogeysiinaynaa macaamiisha Minara Homes inaan bilownay mashruuc 4 bilood ah oo qayb dhibis ah mashruucaas oo 4 bilood la bixin doono 20% qiimo dhimis waxaan ugu boqodinaynaa our clients inay ka faa'iideystaan qiimo dhimistan 4 bilood intay dhamaaneen. shirkad ahaan ee kambaniga ay bixinayaan fursado qaali ah ee ugu talagalna dadka walaalaha inay ka faa'iideystaan. fursadaasna waxaa loogu magac daray maalmihii dahabiga ee Minara ama the golden days Minara muddo 4 bilood sanadkan dabayaaqadiisa iyo sanadka soo socda horaankiisa waxaan ugu talagalnay muddo 4 bilood inaan projectiyada qaar aan beecdimis ku sameeyno 20% inaan siino. walaalayaal fursadahan waxaan rabnaa walaalaha meel kasta adduunyada joogaan qaasatan Soomaalida inay ka faa'iideystaan hadaba daneynaysaa inaad Kenya guri ka gadataan ama aad ku yeelataan hanti guraan nala soo xariira waa fursad qaali ah. projectida sida Kalaleesho iyo Westland waxaan siinaynaa 20% macaamiisha ugu xiran inay ka faa'iideystaan. sida ogtiin walaalayaal anaga kambanigeena wax ribo ma qaato wax dul saar male 30% buu qofka iska bixinaya lacagta kale waxa ku bixinaysa muddo 4 sano adigoo deen lagu leeyahay ayaa guriga soo degaysa ayaadna ku dhaqmaysa ama adoo maqan waa lagu kireynaa. guryaha xaafado badan ayaa socda projectiyada 5 sida Parkland, Westland, Kalaleesh, Sosi iyo Sycamore Village. darteed haddaad danaynaysaan inaad fursadaan ka faa'iideysataan nala soo xiriira kambaniga Minara waxaad ka helaysaan guryo tayo leh waaweyn ee dhisayaan kambani Turkiya. ilaa 4 mashruuc baan wadnaa hadda qayb dhamaatay qayb socota iyo qayb bilow ay isugu jiraan. mashruuc hadda aan ka wadno xaafadan Sycamore oo vilooyin ah iyo mashruuc aan ka wadno xaafadan Parkland oo isaguna apartment isugu jira iyo mashruuc aan ka wadno xaafada Westland Westgate Mall iyo Karura Forest iyo muxuu ahaayay Sari Center Mall u dhow isaguna xaafadan Kalaleesho isaguna mashruuc baan ka wadnaa. mashaariic kale iyaguna cusub oo soo socda jira waa inta wadanka Kenya aan rabnaa inaan ka qabanno. waxaa kale oo rajaynaynaa inaan wadamo kale wax ka qabanno sida Turkiga, Djibouti, Soomaaliya. waxaan ugu baaqayaa walaalaha muslimiinta ah iyo bulshada caalamka ku dhaqan daafaha dunida joogta labadaba inuu kambanigan fursadahaas uu u fidiyay fududeynta ah inaan ribana la saaraynin 4 sano uu ku dhiibi rabo xaafadu rabana uu guri ka helayo. guryaha waliba anagoo aan dhisaynana way ka duwan yihiin Islamically masaajidii oo 2 ah, swimmingpooladii oo 2 ah, supermarketkii meelaha ilmuhu ku ciyaarayeen ayay leeyihiin. marka waxa weeye kambaniga qaybta shaqaalaha waa qayb muxuu ahaayay aad loo carbiyay oo tababaran. qaybta dhismaha waa injineer Turki ah. qaybta muxuu ahaayay maamulka iyo agaasimaha waa dad culimo iyaguna aaminka ilaalinaya. marka walaalaha waxaan ugu baaqi lahaa inay ka faa'iideystaan